waxaa maanta deegaanka Wadaamago oo ka tirsan degmooyinka waaweyn ee gobolka Sare lagu soo dhaweeyay agaasimaha wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soo dhaweynta agaasimaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa ka qayb qaatay maamulka gobolka kan degmada Caynaba, xildhibaano ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba, waayeelkii waxgaradka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi Wadaamago. Soo dhaweynta agaasimaha kadib ayaa waxa uu agaasimahan u dhagax dhigay waddo 90 kiiloomitir oo isku xidha deegaanka Wadaamago iyo Buuhoodle, waxaana munaasabad ballaaran oo loo qabtay dhagax dhigga wadadaasi ugu horeyntiiba daahfuray xogayaha dowladda hoose degmada Caynaba oo ah daadiyaha barnaamijka. waxaanu sharaxay ujeedada socdaalka agaasimaha wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, barasaab ku-xigeenka koowaad ee gobolka Sare ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Ibrahim Jaamac Maxamed, gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Caynaba ahna duqa degmada Caynaba Faysal Axmed Jaamac, iyo waliba xubno ka tirsan guddiga soo abaabushay qorshaha lagu hirgelinayo wadada dheer ee isku xidha deegaanka Wadaamago iyo magaalada Buuhoodle ayaa waxay dhammaantoodba uga mahad celiyeen agaasimaha biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigu hogaaminayay socdaalka ay ku yimaadeen deegaanka Wadaamago iyo inay kala soo qayb galaan munaasabada loogu talagalay dhagax dhigga wadada 90 kiiloomitir ee isku xidhaysa xarunta gobolka Caynaba, Buuhoodle iyo deegaanka Wadaamago oo ka tirsan deegaamada waaweyn ee gobolka Sare. halkan maanta idinku dhagax dhigna oo ugu wanqalayna horumarka maanta u diyaar garowdeen inaad ka qabataan wadada Buuhoodle iyo isku xidha gobolka Sare, labada gobol isku xidhaysa oo aad tiraan dib badan bay nagu haysay, annaguna aanu ogeyn. haddii aad tiraan maanta diyaar baan u nahay, xukuumaddana waa baryayna, ayadana waa baryayna, annagu se waanu u tashanay inaan wadadaas samayno oo aad u diyaar garowdeen. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. halkan waxaanu dhagax dhignay wadada isku xidha Buuhoodle iyo gobolka Sare. bal yow durayna qodobada reer Buuhoodle aanu nahay gobolka Sare, annagu xaggan aanu ka soo dhagax dhignay wadada nabadgelyadeeda iyo samaynteeda. marka hore wadadan sida ay odayaashii iga horeeyay ama xogayuhuba uu sheegay, waxa weeyaan wadadan waddo aad iyo aad u muhiim weeye oo u muhiima gobolada Sare iyo gobolka Togdheer. Agaasimaha wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna hadal kooban ka soo jeediyay ayaa si weyn ugu mahad celiyay dadka deegaanka Wadaamago oo iyagu isku hawlay hirgelinta iyo bilowga wadadan, isagoo sidoo kale ugu baaqay xoolo dhaqatada deegaamada wadadani marayso iyo waliba qurba joogta u dhalatay deegaamada Buuhoodle iyo Wadaamago in ay ka qayb qaataan dhamaystirka wadadani, sidoo kalena ballan qaaday inay xukuumad ahaan qaan weyn ka geysanayaan, isla markaana sheegay in wadadan ka mid tahay wadooyinka ay halganka dheer ugu jirto xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu garwadeeka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamuud Silaanyo. agaasimaha wasaaradda biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland intii khudbadiisa ku guda jiray ayaa waxa uu bulshada goobtaasi ku sugnaa uga marakacay inuu wakiil ka yahay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxa barnaamijka horumarinta wadooyinka, isagoo sheegay inuu wasiirku markii hore ku talagalkiisu ahaa inuu ka soo qayb galo munaasabadan lagu dhagax dhigayay furitaanka wadada dheer isku xidha magaalada Wadaamago iyo waliba Buuhoodle, balse hawlo shaqo dartood uu u baaqday. si kastaba ha ahaatee wadadan ayaa wax weyn ka tari doonta isu socodka dadka iyo gaadiidka deegaamada gobolka Cayn iyo Sare iyo waliba sidoo kale gobolka Togdheer, si weyn ay ugu dirsadeen qaybaha kala duwan ee bulshadaasi. Maslax Salamaasida Koronto Somali Channel Caynabo.